الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. waxaa sharaf weyn noo ah inaan maantay ku soo dhaweyno madaxda magaalada Garowe gudoomiyaha baarlamaanka dawladda Puntland iyo wafdiga xildhibaanada la socday oo saaka soo kicitay magaalada Muqdisho mudane gudoomiye hadal badan halkaan noogama furna waxay kaliya inaanu muujino inaan adiga iyo wafdiga kuwa socday idin soo dhaweyno aniga iyo xildhibaanada iyo shaqaalaha howlwadeennada halka fadhiya soo dhawaada adiga iyo wafdiga xildhibaanada kula socday aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa saxaafadda iyo xildhibaanada iyo shaqaalaha iyo howlwadeennada baarlamaanka oo sida weyn oo sharafta leh noogala soo qayb galay maanta halkan soo dhaweynta aad u joogay aad iyo aad bay mahadsanyihiin. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada dowladda Puntland xildhibaanada sharafta leh khiyaarta kale ee odayaasha iyo cuqaasha iyo mingarboodka howlwadeennada miidiyaha gabdhaha assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. salaan kadib aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa mudanayaasha sharafta leh ee golaha wakiilada dowladda Puntland iyo cid kastoo ka soo qayb gashay soo dhaweynteeda aniga iyo xildhibaanadii ila socday aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa. hadda kadib anuu safar baan ugu maqnaa shaqo waqti hadda laga joogo aduu 2 wiig iyo ka badan dalka Djibouti iyo magaalada madaxda dalka Muqdisho oo inaan ugu dambeeyay ku sugnaa meelahaas waxaan u tagay ama aan safarkaygu ahaa safar shaqo oo muuha dana gaari way weerayeen laakiin safar shaqo u badnaa oo aan ugu maqnaa dalka iyo dadka gaar ahaan golaha wakiilada. marka insha Allah wixii waraadee hoos baynu soo wareysanaynaa golaheena ma soo tagi doonaa. aad iyo aad baan mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad idinku mahadcelinayaa. halkan waxaan ka salaamayaa oo aan hay'adaynay u rajaynayaa barwaaqo iyo amni iyo bashbash shacabweynaha sharfan Puntland insha Allah intaas baan ku soo koobaya hadalkayga. هذا بالله التوفيق.